Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran kanaalka Naciim Studio ee Darul Khayr Media. Halkana maanta waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeeni taxana ahaa ee qisooyinka. Qisadani waxay dhacday waqtiyadii ay noolaayeen ummadii hore, waxaanay ku saabsan tahay gabar socoto ahayd oo meel cidla ah iyadoo maraysa ay u dhamaatay waqtigeedii noloshu. Gabadhu waxay dhabarka ku sidataa ilmo yar oo bilo kooban jira. Dabadeed, malagii nafta ka qaadayay wuxuu ka naxay ilmaha yar ee aanay cid la socon markii uu hooyadii dhinaca aakhiro u kaxeeyo. Laakiin wuxuu filiyay amarka Ilaahay oo naftii ayuu ka qaaday. Muddo dheer kadib ayaa loo diray inuu ka soo qaado nafta oday da' ah, balse malakul mowtku wuxuu la kulmay odaygii isagoo ul ka samaysanaya meel ulaha lagu sameeyo oo uu ku leeyahay ii adkeyn salka usha, waxa aan doonayaa inay in badan i hayso. Malakul mowtku wuxuu ku qoslay odaygii da'da ahaa iyo sida noloshu u dhamaatay. Dabadeedna Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku yiri malagii, sharafteydan kuu dhaartay, ninkan kaa qosliyay waa ilmihii yaraa ee aad beriga ka ilmaysay ee cidlada joogay. Subxaanallah, alla ma dayacayo cid u abuuray, kumana ilaaliyo oo keliya waalid iyo inay cidla joogto ee ilaalada iyo dayactirka dhinaciisa ayaa ka yimaada.